doodani waxay socotay xitaa ka hor intii aanu madaxweynaha Mareykanku xilka la wareegin balse hadda waxa ay gaadhay halkii ugu sareysay iyadoo aad loo hadal hayo daadiisa awgeed oo weynaatay in maskaxda madaxweynaha Mareykanka Trump ay hoos u sii dhacayso buugu qoray nin lagu magacaabo Michael Wolof ayaa lagu sheegay inuu Trump uu muujinayo astaamo ka sii daraya oo ku saabsan inaanu maskaxaan fayoobayn buuga kale oo badan oo laga qoray caafimaadka madaxweynaha Mareykanka Mr. Trump waxa kamid ahaa Dangerous Case of Trump oo isaguna ka faaloonaya caafimaadka madaxweynaha waa arin uu shaqadiisa ku waayi karo hadii la xaqiijiyo inuu waalan yahay sababtu waxa ay tahay in qodobka 25aad ee dastuurka wadanka Mareykanku uu dhigayo in hadii madaxweynuhu uu miyir beelo uu ku xigeenkiisu xilka kala wareegayo waxa mooshin ka geyn kara madaxweyne ku xigeenka iyo aqlabiyada golaha wasiirada taasi oo aan ahayn hadda mid muuqata suuragalnimadeedu balse codadka ka dhanka madaxweynaha Mareykanka ayaa soo kordhaya arintani ayaan ahayn mid cusub madaxweyne yaal hore oo soo maray wadanka Mareykanka ayaa ay soo waajahday caafimaad darro sababtay in xilka laga wareejiyo waxaana kamid ahaa madaxweynihii hore Abraham Lincoln iyo madaxweyne Ronald Reagan oo la sheegay inuu wareeray isla markaasina aanu kala garan jirin mararka qaar halka uu ku sugan yahay waxa la isbarbar dhigay muuqaale hore looga duubay iyo kuwa cusub waxaana la arkay inuu jiro isbedel weyn oo ku saabsan dabeecadiisa markii hore waxa uu ku hadli jiray hadallo dhaadheer oo aad u adag isla markaasina isagoo hadalkaasi uu wado dhexdiisa ku jira ayaa uu fikiri jiray xeeldheerayaashu waxa ay leeyihiin waxa laga yaabaa inay ugu wacan tahay halmaam ama xitaa daadiisa oo weynaatay waxa farta lagu fiiqay inay jirtay mar madaxweynuhu uu laba gacmood ku qaatay galaas biyo ah oo uu cabayay iyo waliba mar isaga oo hadlaya uu codkuba ka lumay toddobaadka dambe madaxweynaha wadanka Mareykanka Mr. Trump waxa lagu wadaa inuu maro baadhitaan kii ugu horeeyay oo caafimaadkiisa xagga maskaxda lagu hubinayo tan iyo intii uu xilka la wareegay